بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام يا كبيهان تيمبا صحاب تقاليقة ميلبو شوكتان ونكي ورالكي لهاي حسين جامعها ومركالة دب قصة لابتي ساحدة فلنقينتا سياسة صوماليا وحان اوغاهاي inaan runtii maalmihii lasoo dhaafay ay ahayd inaan bal soo galo mar kale waxaynu bal dib haddana u fiirino bal go'aamadii ka soo baxay waxaa loo yaqaano heshiiskii 17 September oo intooda ugu badan dadku ay ka dheregsanayeen laakiin bal aynu bal dul istaagno maxaa ka cusub waxaa kaloo aynu runtii muhiim ahayd inaynu inta imaano aynu bal haddana dib u fiirino meelaha aynu isleenahay waa macquul in uu dalku aado iyo waxyaalaha laga fili karayo xooga badan ayaan runtii ku mashquulsanaa inaan bal isku soo aruuriyo arrimo mashquulana runtii oo shakhsiyanna way jireen تامرك waa ka cudur daaranayaa dad badan waxaan arkay asxaab ah oo ii soo diray message yiri niyow bal soo gal lagu aawi lagu waayay xageed ka baxday arinta aad bay ii soo gaartay farintaasi waana ka cudur daaranayaa runtii nolol iska waalan adduun waalan baynu ku noolnahay inta badan waqti walba inoo ma suurta gasho in wixii la rabay inaan qabano aynu qabano ama xilli walbaba inaynu bal ummadda wax ku soo kordhino inoo ma suurta gasho laakiin dadaalku soconayaa وأنا إيمان دون تابا very soon إن شاء الله تعالى مركي أرمهان وحلو يقانا دورشدو أي سيف عن سوق دعان أيان رنتي آد أسود تبين دونا أرمها مقالة اللي حليل السياسة الصومالية يو أرمها كامبين كي دورشدا مركا أرنتا وسوسعنا إن شاء الله وأنا إيمان دونا بإذن الله مركا هلاقر عليها هذا أنت هدي أنك قدبو مقال كان هل كان أنكسو قدبنا يومان تيتو وحو دارنان دونا كليا لبا أرمود كو ماشي شركة وكدعي الوسي حي شيسكي 17 سبتمبر وحيالي كدعي قد بدها هابا ربائنا بالميلير اوغا لابتو سي ان ايدين توسو عدة قول درادة الله يتي عدة قوش الله يتي iyo waliba cida dhexdhexaadka ka ah arrimahi meesha la isku hayay iyo cida waliba noqon doonta cida madaxweyne farmaajo la tartami doonta oo sida dhabta ah challenge ula jirtana waan idin sheegi doonaa waxa kale oo idin sheegi doonaa arrimo kale oo ayaguna muhiim ah oo xoga ah oo la xiriira siyaasadda Soomaaliya markii ay doorashada jirto dad khaas ah ayaa runtii arrinta go'aan ka gaari jiray oo dawladda shisheeye leh iyo waliba dad kale oo fara badan oo local iyo waliba dibadda ah iyo waxa kale oo jiray faktor kale oo muhiim ah ama waxyaalo kale oo ayaguna muhiim ka ah arrimaha doorashada xaqooda sanadkaani waxyaalaha aynu u baahanahay indhaha inaynu ku hayno iyo waxyaalaha isbedelay arrimahaasna turxaan bixin weyn baan ka sameyn doonaa taamarka waa labada qaybood waxa uu barnaamijkeenu maanta uu ku saabsan yahay waxaan ogahay in qof walba oo barnaamijyadeeda ku xiran oo arrimaha siyaasadda aan ku falanqeeyo in maalmihii la soo dhaafay barnaamijyadii aynu wadnay turxaan bixintii aynu wadnay mid walbaba sidii aan u dul istaagnay inay u ahayd tusaale arrimaha doorashada arrimaha dawladda shisheeyaha faragelinta arrimihii khadar arrimihii mucaaradka in la qasbi doono arrimihii saxiixa dib markaad ugu laabato muuqaal walba xataa markii aad fiiriso video xal waxa jiray oo ii soo diray oo aan ka hadlay maalinkii madaxweynuhu uu dib ugu laabanayay heshiiskii 17 September u baarlamaanka hortagayay maalinkii ka horeysay video aan duubay oo aan kaga hadlayay arrimahaas sidii ahaayeen tusaale ahaan oo kaleeto in madaxweynuhu saxiixi doono in ra'iisul wasaaraha lagu wareejin doono all that stuff to point on wada hadalna runtii waxaad moodaa inta badan in qaabka aynu wax u dul istaagno ay sida ay ahaataa bad moodaa waan rajaynaa markaa inaynu sida ay u wanaagsanaato waxa loo yaqaano turxaan bixinteena iyo waxa loo yaqaano analysis-kana oo aan markaa ka dhax bixino bal emotionka iyo cadiifada iyo qabiilka iyo beenta iyo waxa
aynu ka dayno si ummadda aynu bal wax ugu sheegno arrinta aad baan u jeclaan lahaa dadaal badan baan ugu jiraa inaan mar walbaba xogta aan soo gudbinayo ay noqoto mid xaqiiqada u dhow mid adinka wax ay tustaha dalkan loogu danaynayo ma aha inaan u danaynayo kaliya ninka aan ugu taageersanahay kaliya ma aha mar walbaba waxyaalaha targetka ah waxa weeye waa dalka weeye not shakhsi kaliya ma aha madaxweynuhu wuu bixi madaxweyne walbana wuu bixi jira laakiin waxa aynu sheegaynaa dalka iyo dadka see u yihiin aragtidaasaan jeclaa inaan iibiyo marka arrintaasna aad baan waqti badan ugu bixin doonaa inaan bal xogaha muhiimka aan keeno waxaan rabaa inaan idiin sheego xogaha ina soo gaara shacabka anigu ka mid aha xogaha ina soo gaara runtii waa xogo aan isleeyahay maysan ahayn wixii shacabka loo sheegi lahaa siyaasaddu khiyaano iyo been maaha siyaasaddu waa inaad samaysa strategy iyo system dalka hore loogu marsiiyo maaha inaad sheegto waxaan waxba ka jirinin siyaasiyiinta soomaalida waxay caado ka dhigteen in dadka been loo sheego waxaan la qaban karin in la yidhahdo waa la qabanayaa wax la sameeyey in la yidhahdo lama samaynin shaati la og yahay inaan la qabin la yidhahdo waan qabaa micnihii dadka ayay marin habaabin u keenta waxaad arkaysaa nin ku taageeraya nin kala reernimo laakiin waxa uu ku taageeraya mabaadi ma ah waxa shaqeeya waa mabda'a shaqeeya qofka kugu reerka hadduu mabda'iisu fiican yahay oo mabda'a ku taageerto waa khayr ma aha qofka aan kugu reerka inuusan kugu mabda' fiican uusan wadi karin ma laga yaabaa taageerto qof kugu reer ah laakiin mabda' fiican wada waxaa kaloo laga yaabaa qof kugu reer ah inuu mabda' xun wado aad ka harta wey marka muhiimad waxaa weeye in siyaasadda soomaalida mabaadi lagu daro inta aanan bilaabin waxaan rabaa inaan idiin sheego haddaad u fiirsateen reeraha soomaalida maamulada reeraha fiiriya reer walba oo soomaaliya maanta wuxuu ka qaylinayaa waxa uu ka mataqaanaa xun yahaa sida ay dadkiisu midnimo aysan u haysanin Soomaaliya marka tagto hadda ninka Muuse Bixi la yiraahdo marka uu la hadlay shacabkiisa hadda maalinta 18 May ka hadlayay oo kaleeto waxa uu dadkiisa kala hadlayay waxay ahayd aynu midowno hadaan midnimo haysano waan helina ictiraaf bukaday waxa uu leeyahay uu ka qaylay waxa weeye doonaya in shacabka reer Somaliland maamulka degan anagu maamul baan u aqaanaay inay midnimo helaan midnimadaas ay ku gaari karaan ictiraafka ninkan dhexe Saciid Dani la yiraahdo ee maamulkan Puntland xukumaa ayaan dhawt wuxuu ka sharqaminayay wuxuu yiri taageerayaasha reer Puntland dhan farmaajo ayaa watay waa in shacabka reer Puntland ay midnimo helaan wuxuu ka hadlay asagoo midnimo xamar nimanka ka hadlaya ee reernimada u hadlay ee siyaasadii qabiilka u bedelay waa iyagii lahaa hebel uu ka soo baxa dawladda oo dhiiqan dugaha kula jirtay reerkaaga u imow si reerku midnimo u helo waxay aaminsan yihiin nimanka ayaguna in haddii reer ku midoobo waa reerka iyaga ah inay siyaasadoodu wanaagsanaanayso midnimo reer bay raadinayaan waxa markaa 30 sano aan fahmi laana waxa weeye war qabiil ma midoobo midnimadu reernimada dadka Soomaalida ah qabiil walba fiirso wuxuu ku leeyahay midkaas waa tuug oo heel buu u shaqeeyaa farmaajo u shaqeeyaa oo qabiilkiisa ma jecla oo midnimo qabiilka ma doonayo waxaan wali fahmin waxa weeye qabiilku midnimo ma yeesho qabiil ma midoobo reer Soomaaliland ma midoobayaan haddii ay qabiil yihiin reer Puntland ma midoobayaan haddii ay qabiil yihiin kuwa xamar ka qaylaya ma midoobayaan waayo waxa dadka isku xiri kara qabiil ma qabiilku mabaadi adag oo dadka isku keenta ma noqon karo qabiilku waa identity aniga hadda Xuseen Jaamac baa la yiraahdaa nin kala jira walaalkii saaxiibkii ah oo Maxamed Jaamac la yiraahdo aniga Maxamed Jaamac waa jaamac nama midayn karo identity way jaamac waa reer jaamacna uu sheegaya qabiilku sidoo kale dadka waxa mideeya marka identity-ga ma all white people ma midaysan maya dadka balaaga ma midaysan maya dadka waxa mideeya identity-ga ma qabiilku wuxuu ka mid yahay quraanka lagu sheegay li tacaaruf bali qabiilku waxaynu isku garan karnaa waa identity dadka waxa midayn kara marka identity-ga ma aha waa mabaadi dadka midaysan tusaale ahaan oo kaleeto aniga iyo adiga caaw kuma kala fakir duwanaan karno in calanka buluuga uu yahay calanka dhabta ee Soomaaliya waayo waa mabda way calanku kuma kala fakir duwanaan karno in dalkeena Soomaaliya la yiraahdo maarta cid kala fakir duwan maya waayo waa mabda la aamino kuma kala fakir duwanaan karno in ciida anagu aynu la waxyaalaha dadku ay isku xira waxa weeye waa mabda way tusaalaha ku isqarxinaya ee diinta sida qaldan loo galiyay maxay isku qarxinayaan caaw adigu qabiil isku ma qarxin kartid waayo qabiilku mabda ka dhacayo qulubtaada ahseexan kala ma dadka marka waxa isku keena waa mabda dadka waxa isku keena reernimada ma that is why marka aad arkaysa marar badan dadku way ku wareereen inay
fahmaan waxa midnimada keeni kara reer hebel dhulkooda uu burbursan yahay reer gado reer hiiraan reer somaliland dad qaylinaya reer jubbaland reer hebel reer muqdisho war dadka kuma midoobaan identity mabda lagu midooba ayaa dadka loo keenaa daarta la midoobo bring something oo dadka ku midoobi karaan mabadi oo la aamini karo taa intaasaan oga baxaya waxaan markaa idin sheego waxaa dadka loo sheegaya xogaha ah ee beenta ah way ina marin habaabinayaan laakiin inuu toosinayaan wada dhaba inuu toosinayaan taa marka waa in dadku ay si dhaba ay runtii ay u fahmaan waxyaalaha ina soo gaaraya ee xogaha ee dadka loo sheegaya filtration bay u baahan yihiin filtration waxa la yiraahdaa waa shaqo way in la kala miira loo baahan yahay inta biyahana goon loo saaro inta waxa la yiraahdaa solid ka ah na goon loo saaro ayaa loo baahan yahay taas ayaynu ku fahmi karnaa horaan u galayaa arrintii baalawita ka dhacday shirkii lagu soo xiray waxa loo yaqaano heshiiskii 17 September haddii aad attention siisaan dhowr qof ayaa waxa ka dhex muuqday cara ayaa ka muuqatay xataa hadalkoodii wuxuu ahaa hadal aan fadhinin ayuu ahaa sideeda mararka qaarkood waa inaad akhrin karto qofka wajigiisa waxa uu ku sheegayo qofka ugu horeeyo aan rabaa dul istaago wuxuu ahaa Saciid Cabdullaahi Dani maalin dhawto waxa wajigiisa ka muuqday murugo iyo caro iyo inuu ahaa nin la qasbay ayuu ahaa Saciid Dani waa la qasba waxa la yaabay attention ka dad siisaan ku laabataan Saciid Dani wuxuu hadlayay raafli ilaa iyo 5 daqiiqo wax dhiman buu hadlay baan u mareynaya hal marna Saciid Dani waraaqda uu akhrinay kor madaxiisa u qaaday dadkii hor fadhiyay Saciid Dani ma uusan fiirinay waraaqdii uu fiirinayay Saciid Cabdullaahi Dani hal line ah oo si toos uu hal mar u akhriyo waa la waay line kasta inuu saddex jeer ku celiyo ayuu keenay qalqalka iyo waraaqda uu akhrin waayay iyo dadkii uu fiirin waayay iyo waxa wajigiisa ka muuqday Saciid Cabdullaahi Dani guul darro weyn inay ku dhacday ayaa Saciid Cabdullaahi Dani ka muuqatay waxa kale oo cajiib ahaa oo Saciid inuu caraysna ka muuqday wuxuu ka mid ahaa Saciid Dani dad yar oo meeshan ka istaagay aan madaxweynaha salaam buu ka mid ahaa wuu istaagay Saciid Cabdullaahi Dani qodbadiisa ayuu dhaxgalay markii waraaqdiisaas uu akhrin fiirin kabacdi inuu iska tagay waxyaalaha sidoo kale aan la yaabay oo asagana meesha ka hadlay waxa ka mid ahaa Xasan Sheekh Maxamuud xasan asaguna wuxuu ka mid ahaa dadkii yaraa oo inta istaagay xataa awoodi waa madaxweynaha inuu salaamo inaad madaxweynaha salaantaa inaad madaxweynaha jeceshahay aad nacabtaa midna kuma jirto waa xushmad aad dalkaaga iyo dadkaaga xushmanayso madaxweynuhu waa waxa loo yaqaano waxa weeye waa astaantii qaranka ayuu madaxweynuhu haddii marka astaantii qaranka aad salaami weydo de macnaheedu waxa weeye inaadan qarankan aaminsanin xasan sheekh maxamuud marka waxyaalaha asagu intaa ka badan ayaa runtii aan ka dhex qabtay qodbadiisii waxyaalaha aan ka dhex qabtay waxaa ka mid ahaa xasan wuxuu ka hadlay inay xun tahay ama ay kala qaybsan yihiin hay-adaha dowladda ciidanka baarlamaanka dhowr waxyaalood buu ka shaqamiyey xasan marka sida uu u waleeray ama runtii looga dareemayay inuusan xataa ahayn nin soo diyaar garoobay oo inuu hadlo ku soo diyaar garoobay oo aad moodid in la soo qasbay oo meesha xoog lagu keenay waxaad ka dareemaysaa waxa weeye qofka markuu maskax degan uu ku soo fakiro oo waxa uu doonayo uu rabo inuu ka sheekeeyo wuu ka tagaa waxyaalaha asaga marka uu sameeyay oo qalaadka ah meelo kale ayuu qodbada la aadaa xasan wuxuu ka hadlay in ciidanku kala qaybsan yahay waa ciidankii asagu kala qaybiyo wey uu afkiisa ka yiri hebelow dhiiqaal dugaha kula jirtaaye ka soo bax hebelow xumaan baad dugaha kula jirtaaye ka soo bax ciidankii uu xasan asagu kala qaybinayay ayuu ka warramayaa in la kala qaybiyaa inay dhibaato tahay qofka noocaa markaad fiiriso marka waxaad ka dareemaysaa inuusan ahayn qof stable ah siyaasad ahaan fakir ahaan qof fadhiya ma aha xasan sheekh maxamuud waxay kaloo arrintaa muujinaysaa inuusan xasan u diyaarsanayn arrimaha siyaasadda inuu la sii jaan qaado oo uu yahay qof runtii ka niyad jabay oo frustration uu ku furan yahay ayaa xasan ka dhex muuqanaysa waxyaalaha kale oo xasan aan ka soo qabtay ayaa waxaa ka mid ahaa xasan wuxuu ka warramay in ay jirto in siyaasiyiinta iyo dadka kalta la quursanayo waa arrin runtii shakhsiyadiisa u laabanaysa ma asaga la quursaday oo madaxweynaha ayaa quursaday buu leeyahay ma garanayo
ma in dad kale oo siyaasiyada la quursaday ayuu dareemayaa ma garanayo laakiin xasan inuu quursi ka warramo waxay muujinaysaa xasan inuu yahay nin si qaldan loola hadlay ama nin la quursaday oo doonaya inuu caddeeyo in la quursaa inay qaatahay nin caraysan oo micnihii qof la quursaday ah oo raba in uu muujiyo in la quursadaa inaysan arrin sax ahayn ma garanayo marka turxaan bixin badan kama uusan sii runtii uusan bixin waxay marka arrintaa mar kale tilmaamaysaa in Saciid iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay ahaayeen dad runtii arrimaha doorashooyinka in la saxiixaa aan raalli ka ahayn waayo 8 bilood ayay hortaagnaayeen arrimaha doorashada shuruudo ayay ku xirayeen shuruudahoodii oo la furin ayay saxiixeen ama raalli ka noqdeen inay saxiixaan taasoo aan idin sheegay in ay reer galbeedku ku qasbeen aydan bari ahayn ma saxan tahay mise ma saxana dib aan uga hadlayaa in reer galbeedka inay qasbaan maanta laakiin arrintaa way muujinaysaa waxaa kale oo qofka saddexaad ahaa oo aan isleeyahay wuxuu ka mid ahaa dadkii la qasbay ee aan ogolaansho uu leeyahay ku saxiixinin ama aan raalli uga noqonin heshiiskii la saxiixay ninka odagay cabdi xaashi la yidhaahdo ninka odayga ah muddo badan buu hadlay weliba taamkii loogu talagalay oo la siiyey taam ka badan ayuu hadla laakiin erey wuu ku aadin waayey madaxweynuhu asagoo dadkii aan salaamin buu ka mid ahaa wax aan loo jooginin iyo sheeko aan loo joogin oo out of topic ayuu ninka odayga ka warraba wixii laga hadlayay iyo doorashada iyo wixii la isku hayay waxaan ahayn buu ka hadlaa ninka odayga taana waxay ku tusaysaa saddexdan marka waxay muujinaysaa inay runtii yihiin dadka siyaasiyiinta oo emotionkooda qarin karinin siyaasiga dhabta ah waa ninka xataa hadduu caraysan yahay uu xanaaqsan yahay asagu markaa qarin kara emotionkiisa oo aan cadiifad iyo hadal qaldan iyo hadal iska hor imaanaya iyo hadal aan macno lahayn aan ku hadli karin asagoo xanaaqsanta soo istaaga qosli kara isla markaasna ummadda u sheegi kara ninkaas siyaasi la yiraahdo siyaasaddu mararka qaarkood waxay u baahan tahay inaad tahay qof wax qarsan kara taasna markii aad akhriso wajigooda nimanka odayaasha ah saddexdan nin iyo dad kale lagu daray laakiin dadkii hadlay saddexdan nin ayaa ka mid ahaa saddexdii nin oo ay reer galbeedku qasbeen hore ayaan kugu sheegay waraaqaa loo diray waxaa lagu yiri waa inaad saxiixdaan baa lagu yiri marka saddexdan nin baa ka mid ahaa dadkii marka meesha ka hadlay oo xataa wajigooda uu emotion ka muuqday uma maleynaya Xasan Sheekh Maxamuud inuu sanadkan soo tartami doono hadduu soo tartamana waxaan u maleynayaa in ay ku dhici doonto ceeb aan hore loo arag waa aragtideeda weytaa laakiin sida uu xasan u socdo iyo weliba meesha uu hadda Xasan Sheekh Maxamuud uu marayo waa meel uusan ku tartami karin wey dad la taliya hadday jiraan dabcan waa loo sheegi doonaa it is not your time baa la oran doonaa marka taa halkaasaan uga gudbayaa waxaan rabaa inaan dul istaago qodbadii uu jeediyey Shariif Sheekh Axmed runtii qodbadaasi waxay ahayd qodbadii meesha laga akhriyay qodbadii ugu cajiibsanaa bay ahayd Shariif Sheekh Axmed hadda ka hor ayuu runtii shucaac u dhex galay siyaasadiisa iyo shakhsiyadiisa shucaac madow baa hadda ka hor ku furmay laakiin hadda waxaad moodaa inuu banaanka hadda u soo baxay uu fahmay halka loo socday ayaad moodaa ninka loo yaqaano Shariif Sheekh Axmed Shariif qodbadiisii runtii qodbad ammaan mudan ayay ahayd wax kasta uu Shariif ka hadlayna runtii bogaadin ayay mudnayd la taageerayo iyo qofka taageerayso oo mid adeeg ku qaasa Shariif yani Xasan Sheekhna difference ima kala dhaxeeyaan laakiin qofka creditkiisa aan rabo inaan siiyana waan siinayaa kii aan u arko inuusan credit lahayna kuma qasbay credit uusan lahayn Shariif waxyaalihii runtii uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa markii hore uu khudbadda furtay Shariif wuxuu si toos u salaamay madaxweynaha qaranka waa salaam yaabay madaxweynaha qaranka iyo dadka meesha jooga oo dhan si wanaagsan oo waji furan ayuu salaamo oo fiican wuxuu kale oo runtii uu suubiyey inuu mahadnaq u celiyo maamuladii iyo dowladda khaasatan ra'iisul wasaaraha inay dhameeyeen arrimihii la isku hayay ee doorashada aad ayuu uga mahad celiyay Shariif waa arrin fiican bay ahayd wuxuu kale oo uu raaciyay inuu soo dhaweynayo asagoo ku hadlaya afka waxa loo yaqaan midowga musharaxiinta ayuu isna sheegay wuxuu kale oo Sheekh Shariif runtii uu si kaftan u sheegay laakiin xaqiiqo ahayd in laga hadlana ay mudnayd wuxuu yiri haddaynu nahay midowga musharaxiinta waxaan nalagu xantaa inaynu ka baxno waxa loo yaqaano balamaha aynu galno wuxuu yiri waxaan xaqiijinaynaa ama aynu isku dayi doonaa inaan bal markaan aan balanta ka bixin aynu bal doorashada si loo galay aan raalli uga noqono oo doorashada aan ka balkaysano wuxuu kaloo yiri hadna laga maxaliyada raalli ahaado
oo raaligelin ayuu Sheekh Shariif bixiyay asagoo markaas runtii raaligelinta ka bixinayay wuxuu ka bixinayay ahayd isjijidka doorasho aynu dalka gelinay dadka Soomaalida aba ka raaligelinaa buu yiraahdo wuxuu waa siyaasad buu arintii runtii ugu yaabka badnayd oo Shariif uu ku soo gabagabay ayaa waxay ahayd in uu cafis weydiistay ummadda iyo waliba madaxda dalkan cafis ayuu weydiistay Shariif markaad fiiriso ayaamii hore Shariif markuu hadlayay wuu caroon jiray marbu dhaatay thumma wallahi madaxweynaha dalka wasaarayna emotion ayaa marar badan qaaday laakiin ayaantan dambe waxaad moodaa ciyaartii uu fahmay siyaasadda Soomaalida hadii aad isku daydo inaad xoog iyo emotion iyo qiira jabaan iyo reernimo iyo aad ku raadiso magacaaga un baa dhimanay Shariif wuxuu ogaaday in qaabka uu wax ku raadinayo haduu wax ku sii raadiyaa inuu ku sharaf beeli ayuu ogaaday waxaad moodaa marka Shariif inuu ayaantan dambe uu fahmay sida siyaasadda Soomaaliya madaxweynaha iyo dawladda Soomaaliya hadda qaabka loola challenge gareyn karaa inaysan dagaal ahayn iyo qabiile ay tahay qaab degan oo macaamil wax lagu raadiyo ee shacabka la soo jiito ee ummadda la soo jiidan kara ayuu ogaaday waa sida aniga ila tahay waxa kale oo aan rabaa inaan arintan Shariif aan ku daro maalinkii uu ku soo laabanayay Muqdisho oo dagaalku uu xamar uu ka dhacayay airportka markuu ka hadlayna way muuqataa in dalku dagaal ka dhaxmaysanahay anu dalka dagaalka ka maqnaa waxaan ka shaqeynayaa dagaalka il joojiyo micnihii waxaad arkaysaa Shariif sida uu u soo fahmayo arrimaha siyaasadda ay arkaysaa runtii ammaan buu ku mudan yahay in qofku uu fahmo waxyaalaha weaknesskiisa ah ee dalka iyo dadkaba iyo sumcadiisa u fiicnaan qaab degan wax lagu raadiyo marka Shariif Sheekh Axmed wuxuu noqon doonaa haweeney jireen xogo hore ayaa jiray Shariif wuxuu noqon doonaa ninka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la tartama ayuu noqon doonaa ninka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo sanadkan la challenge garaya on oran karno waa ninka la tartamaya ayuu noqon doonaa dadka kale ee mucaaradka ah ninkii tartana wuxuu noqon doonaa nin aan meel fiican gaarin laakiin Shariif ma guuleysan doonaa cid guuleysanaysa Ilaahay baa yaqaan laakiin waxaan u arkaa anigu Shariif inuu yahay nimankaas mucaaradka ah ninka ugu macquulsan oo sanadka tartami doona ama ku heshiiyaan ama ha ku kala jabaan laakiin Shariif wuxuu ku jiraa rebuilding buu ku jiraa dib isku soo dhisaya Shariif wuxuu helaa iyo nasiibkiisa ayuu buu cuni doonaa waxaan ka rabaa inaan runtii wadadii madaxweyne Farmaajo aan meel yar ka taabto qodbadii madaxweynuhu runtii uu meesha uu ka jeediyay qodbad fiican bay ahayd runtii qaabkii uu shirka u socday markii uu madaxweynuhu hadlayna ummadda oo dhan wuu isbedelay maxaa la yiraahdaa sida ay markaa yihiin anigu naftayda ayaa markaa miisaan saaraya markii aan dhageystay qodbadii madaxweynaha runtii isbedel weyn baa ku dhacay waayo madaxweynaha dhowr waxyaalood waan ka dareemay Maxamed Farmaajo madaxweynaha qaranka qodbadiisii waxa runtii aan ka dareemay number 1 inuu madaxweynuhu yahay more responsible nin aad u masuul ah isla markaasna kalsooni badan ku qaba shakhsiyadiisa ayaa Maxamed Farmaajo markaa muuqatay waxa ka muuqata Farmaajo deganaan badan baa ka muuqatay sida hadalkiisa u fadhiyo sida uu hadalka isugu aadanayay sida uu kaftanka u qaadanayay sida uu ummadda ula hadlayay waxaad moodaa Farmaajo wuxuu noqday more senior buu أنت حيلكم إيماني محمد فرماجي هذا سكوت ما أنت حيلكم محمد فرماجي إيماني هذا القطع مرة كاركود وحسماني وكلا قفقفي وكلا قلقلدي نهال الكيس أنا أدو فدي بوها سومالي ولا دايري شيء لكن محمد فرماجي هذا ذا نقد بدي قدام بيجي أو تشري وحسلا وأنا عادي يقف مركو برتوحان أو تايم جلسو وعاد حيلك عبارة يسوى وعاد فهمي سوحان أنا يعني حسين هادي شو في الصومالية ليجينا عبارة شوكو ما قلنا نقول دورنيك الصومالي وقفت حسب برمولنا يا بقرني anyway مدحوينها قد بدي سي حيالي مركا عن كا لهذي وحكمل لها إن مدحوينها الشيخ الشريف وتشرو من وضع حضر وضع حضر كم مركا ونقول كلا حتى ذلك أين كوضع الشقينه وحين نقطي قد بدي سي مركو الرئيس مدحوينه والشريف شيخ أحمد يعسو كفت النوع عاسل إسلا كان قادم عيد صاحبك الشريف وحلو يقانو عفسكي وسوتشي ووضع قادنيس وما هم بمدة ويدي هذا عليه وحجي مركا وعرف في عن أنه قادنه سقل بيان أنا قادنا ماشي كفت بقولي وحجي أنا بس قلبي وقادنا تعصب وشريسة إنه مدحونه تسي مدة إن متقنا أي تذكر حال كتهاي أنت بدن بكري هذا عفس أما إنه عفنه لكن بس أنا لا قاتنا مدحونه ومبوشي مدحونه سودا ويي شغالي في عناد ورزدارو قبطي
wuxuu bogaadiyey nimankii odayaasha halka isugu yimid arrimo badan madaxweynuhu ka hadlo waxaan kaloo rabaa inaan arrimaha hadalka aan ku soo koobo inta aanan faktarada muhiimka aan u gelinin haddii aad dhegaysateen James Swank hadalkii uu yiraahday hal hadal oo in la fiiriyo mudan ayuu ninka yiri oo muujinaya in nimankan Xasan iyo Dani iyo nimanka la midka in la qasbay nimanka muujinaya hadal phrase ah oo muujinaya ayaa ku jiray wuxuu yiri ninka odayga ah James Swank ma jeclaysan hadalka laakiin waan mutaysana in saad la yiraahdo waayo waxaa jira marka qaar kood qofku inuu hadal xun ku yiraahdo laakiin aad mutaysato in nin gaala oo dalkeena yimid oo marti inoo ah oo siinteena iyo dalkeena oo sida hadal noocaay uu ku yiraahdo ma mudnin sida caadiga ah laakiin waan mutaysana oo maadaama aan responsibility la imaan weynay qofku inuu hadal xun la yiraahdaa marka qaar kood uu mutaysan kara marka waan mutaysana ayaan oran karaa marka ninka wuxuu yiri waxaan ka digayaa qaabka uu hadalka u yiri markii aan bal marka qaar kood waxaa jira hadallada dadkan reer galbeedka ay yiraahdaan marka qaar kood police bay ku leeyihiin laakiin police ma aha tii caadigayd ma aha adoo lagu gumaysanaya fadlan lagu leeyahay waxaan ii samayn kartaa fadlan ba lagu leeyahay laakiin adigu waxaad u malanaysaa codsi laakiin codsi ma waa qasab way hadaad samayn weyso you know inuu consequence ku jiro bilmacnaa waxbaa kugu dhici kara idaad samayn weyso soo marka nimankaanu reer galbeedka luuqadda ay isticmaalaan waxaa weeye hadalka markii la fasiro xanaf ma laha laakiin inaadan waadis hadalku xanaf buu leeyahay way ka gudbeen nimankan reer galbeedka in sidanadoo kale aynu hadal qaloocan isku dhahno way ka tanaasuleen laakiin hadal jiricsan baa lagu leeyahay laakiin ma jiricsana oo haddii aad jireecas wax ku fahmi weyso waa la adkeenaya an you know in la adkeenayo marka wuxuu yiri waxaan rabaa inaan uga digo madaxda Soomaalida ah in heshiiska markii la saxiixo dawladda ka bacdi inaysan arrin dambe oo aysan mar dambe aysan muran ka keenin ama inaysan diidinin ayaan rajeynayaa taasoo micnihii sida dhabta ah ay tahay haddii ay isku dayaan cid dambe inay hor istaagto tilaabo ayaan ka qaadanaa oo cad luqadda afka Ingiriiska waliba nimankan diblomaasiga ah reer galbeedka ah sida ay wax u dhigaan sida way laakiin dadku waxa laga yaabaa inay codsi u mareen laakiin ereygaasi erey codsi ama ahane waa erey hanjabaada fahan u baahan way dadka waqti badan oo Soomaalida ah arrimahan yaqaana waqti badan ku bixin nimankan la shaqeeyna way garanayaan waxa hadalka uu yahay soo marka in marka nala yiraahdaa haddii aad fulin weysaan heshiiska ama doorashada qaybta hadda ka dambe oo hartay hanjabaad noocan loo soo diro runtii maysan ahayn laakiin dabcan waynu mutaysana inta marka waxaan uga gudbayaa waxa loo yaqaano inta waxaan uga gudbayaa qodbadihii meesha ka dhacay iyo dadkii meesha ka soo muuqday intooda muujiyay inay guul daraysteen iyo intii muujisay xagga dawladda khaasatan madaxweynaha oo runtii ay ka muuqatay deganaan badan oo la oran karayo ninkii guuleystay ayuu ahaa iyo Sharif Sheekh Ahmed asagoo markaa runtii la oran karayo prime candidate ka sanadkan ayuu ka mid yahay ama waa ninka madaxweynaha la tartami doonana asna inta ayaan ka leeyahay waxaan rabaa inaan runtii gudagalno bal doorashada sanadkan dhacaysa doorasho noocee ay noqon kartaa waxaan idin sheego doorashada sanadkan dhici doonta waxay noqon doontaa doorashadii ugu saameynta badnayd ee Soomaaliya ka dhacdo kulli inta anigu aan garanayo anigu doorashooyinkii aan garanayay waxa ka mid ah doorashada la soo dhaafay doorashadii Xasan Sheekh Maxamuud tii Sheekh Sharif tii Cabdullaahi Yusuf meeshii lagu dhaariyay ayaan maalinkii joogay dadkii waxaan ka mid noqday Kasarani maxaliyada garoonkii la oran jiray ee Nairobi ku yaalay maalinkii uu ka qodbeynayay oo la dhaarinayay dadkii meesha tagay oo Johannes Suhayl Cabdullaahi lagu hor dhaariyay ayaan ka mid ahaa anyway doorashadaasna waan xasuustaa inkastoo nin dhallinyaro aan ahaa aad u yar laakiin wax badan baan ka xasuustaa oo reference badan baan ka hayaa markii doorashooyinka la fiiriyo doorashada sanadkan waxay noqon doontaa doorashadii ugu saameynta badnayd uguna xamaasadda badnayd bay noqon doontaa waxaa jirtay doorasho 2017kii ka dhacday 2016kii horaantiisii ka dhacday dalkan Mareykanka oo loo aqoonsaday inay ahayd doorashadii ugu xamaasadda badnayd ee Mareykanka ka dhacday doorashadaasi doorasho cajiib ayay ahayd marka waxaan u maleynayaa doorashadii Donald Trump iyo Hillary Clinton ayaa sanadkan Soomaaliya ka dhici doonta markii aan fiiriyay qaabka la isugu dhagan yahay heshiiska in la fuliyo 8 bilood bay qaadato
in marka head to head ama face to face la isku galaa doorasho xamaasad badan bay noqon doontaa arrimo kale oo more secret aan idin sheegi doono arrimaha la xiriira laakiin sababta loo yiri Hillary Clinton iyo Donald Trump waxay ahayd doorashadii ugu xamaasada badneed ayaa waxay ahayd waxaa jiray laba shimbirood oo loo kala isticmaalay labada musharax waa Trump iyo waxa loo yaqaan Hillary Clinton oo aad dalkan caan ogaada ka joogan way garanayaan waxay dhihi jireen Donald is a duck bay dhihi jireen duck waxa la yiraahdaa waa shimbir boolo ah ama shimbirahan iyo cagaha yar waaweyn ee boolada ay biyaha ku dhex jira shimbirta marka waxa Donald Trump waliba qolooyinkan waxa wadi jiray qolooyinkan waxa loo yaqaano jamhuuriga ama qolooyinkan republicanka ah ayaa oraahda wadi jiray so marka Donald is a duck bay dhihi jireen oo shimbirta xataa Donald Trump ayadoo waxa loo yaqaano cartoon ayuu wadan jiray oo dadka taageerayaashiisa way wadan jireen so marka why duck loo yiri waxay ahayd ducktu waa animal waa shimbir laakiin waa shimbir nabadeed weeye waa shimbir aan dambi aqoonin aan dhibaato shimbiraha kale u geysanin oo peacefully marka waxay leeyihiin Donald Trump nin nabadeed oo fiican weeye bay leeyihiin halka ay Hillary Clintonna ay ugu magac dareen shimbir kale taadana hawka la yiraahdo hawku waxa u maleynayaa waa mid kamid ah bahaladan loo yaqaano gorgorka hilibka cuna dilaaga ah mid kamid ah weeye so marka way kala duwan yihiin laakiin hawku waa mid ayaga kamid ah waa mid kamid ah shimbiraha nooca ah so marka waxay yiraahdeen Donald is a duck bay yiraahdeen Hillaryna hawka ayay ahayd bay yiraahdeen marka Hillary waxay ka dhigayeen bahal shimbir ah oo xasid ah oo xaan daran oo waxa la yiraahdaa beerka iyo hilibka shimbiraha kala cunta oo aan dalka Mareykanka lagu aamini karin ayay ka wadeen way by Donald Trump ay ka wadeen nin peacefully ah oo chicken ah oo macaan ay ka wadeen marka waxaan u maleynayaa marka anaguna sanadkan waxaan u baahanahay marka laba oraxood oo midna aynu farmaajo dul saarno midna aynu dul saarno ninka prime candidate-ka si marka doorashadu ay ugu noqoto marna mid xiiso badan haddana marka inta uga gudbo sanadkan ilaa iyo 6 arrimood ayaa u baahan inaynu isha ku hayno si aynu u fahanno cid doorashada ku guuleysan karto kow arinta ugu muhiimsan oo isha lagu haynay ayaa waxay tahay dawladaha Carabeed sida caadada ahayd dawladaha Carabtu markii xilligan la gaaro Soomaaliya boorsooyin waaweyn ayay si officially garoonka ay uga soo degi jireen ayagoo waliba ku hoos ganbanaya safiiradooda iyo hay'adaha dalka jooga iyo dadka ka jooga sida safiirka salahan oo kale dawladda Qatar iyo dawladda Qatar dawladda la yiraahdo Imaaraatba labaduba safiiradooda boorsooyin bay la imaan jireen candidate-ka ay doonayaan inay support gareeyaan ay lacag badan ku support gareyn jireen airport-kuna wuxuu ahaan jiray mid open ayuu ahaan jiray sanadkan in airport-ka la xiray kaliya ma ahane arrin kale oo weyn oo secret ah ayaa jirto idin sheegayo labadii dawladood Imaaraat iyo Qatar labaduba way diideen sanadkan inay lacag ku bixiyaan dalka Soomaaliya si caadi ay u diideen sababtii u diideen waa idin sheegaya labadan dawladood hadda dawladda Qatar la yiraahdo oo kale ayaga iyo farmaajo hadda iskuma fiicna farmaajo uu ahaa prime candidate laakiin ayaga farmaajo iskuma fiicna nimanka mucaaradka lacag ma siin karaan oo waxay isleeyihiin amu farmaajo soo laabtaa oo haddii uu ka war helo in maxaa la yiraahdaa aad mucaaradka lacag ku bixiseen برنا فرماجو وصلابتو حرير كأت فرماجي أدين كسيدة ونقطن دونا ويكبقيان مركا فرماجان آد وما ربان أو خلاف بعد أحتاجن معارض كلا كوما كالصون لمن فرماجة كأت كان كلا أو ما أركان سو مركا إن ده هيك دعوانا يعني هيدوني أنا مركا هدو فرماجان صلابتو فركمية لنا معارض كلا عكوما يسبحين أو مركا ويلنا قاش كران فرماجنا أسوق هذا طبعا ما ملينا إنه وقع له بيوم حاد العقد يسين ويدين سو مركا خبر سنة كاني waxay kamid tahay dadka daawanaya siyaasad Soomaaliya lacag ku bixinay bay kamid tahay Imaaraadka sidoo kale dawladda Soomaaliya iyo dawladdan Imaaraadka ilaa 3 bilood ka hor ilaa hadda wada hadal ayaa u socda nin baa loo diray waxa loo yaqaan caan ka ah siyaasad Soomaaliya laakiin aan magaciisa sheeginin oo u shaqeeya hay'adda waxa loo yaqaan NISA idin kulli Fahd Yaasiin ma taqaanaa laakiin aan ahayn ayaa loo diray ninka ayaana arrimaha si dhab u galay meesha ay marayaanna waa meel u dhow conclusion labadooda heshiiya ma garanayo marka hadda exactly xor taagan laakiin already xoga ayaa ka soo baxay arrimaha
dowladda imaaraatna oo la oran karayay waa dowladda reer carbeed dowladda Soomaaliya maanta mucaarad ku ah ee mucaaradka lacag badan siin kartana wada hadalkaas baa loo furay oo ayaduna sida qadar ma doonayaan inay mucaaradka lacag ku bixiyaan oo farmaajana lug bay kula jiraan mucaaradkan lug bay kula jiraan cidii soo bixi doontaan ma garanayaan ayaguna dad mucaaradka kamid ah ayaa ayaamihii la soo dhaafay sida ay sheegayaan xogaha aan hayo u tagay oo ayaguna ay u diideen lacag halkay aad u dhageysta labada dawladood markaa runtii sanadkan oo kamid ahaa labadii dawladood lacagta badan ku bixin jiray Soomaaliya sanadkaani lacagtooda dalka ma iman doonto laakiin waa laga yaabaa in lacag kala yimaadaan waxaan inta in kugu darayaa ayaantii uu jiray waxa loo yaqaano murankii xamar ka jiray ee qabaa'ilka la hubeenayay ayay mar soo geliyeen dalka waxa loo yaqaano lacag ay u soo geliyeen qaab kale oo wali aan la arago very sophisticated waxay sameeyeen in niman ganacsata ah oo reer Muqdisho ah oo Dubai iyo meelaha joogay ay dhaheen lacag xagga nimanka ka siiya ka bacdi idinka idin siinayna arrimihiina haddan way istaageen baa leeyahay sida xogaha lagu sheegayo oo already waa la fashiliyay arrinta ayda ma aysan wada dhicin qayb baa lacagta fakatay oo mucaarad gaartay qayb kale oo rabtay inay gaartana waa la xakameeyay laakiin qaabkii loo xakameeyay arrimaha ma doonayo inaan dhex galo arrimo xagga dawladda iyo amniga iyo security la xiriir laakiin waa sida la ii sheegay way arinta marka runtii inaysan imaanin lacagta carbeed sanadkaani waxay chance weyn siinaysaa dawladda Soomaaliya khaasatan madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waayo Farmaajo waxyaalaha lagu challenge gareyn karo waxa kamid ah in dhaqaale carabta laga keeno weyn dii dhaqaale carabta laga waayo way adkaanaysaa in la challenge gareeyo arinta kale oo ayadana consideration ka u baahan ama in isha lagu hayo u baahan waxa kamid ah dawladaha dariska nala ayaamihii hore ee doorashadu ay dhici jirtay dawladaha dariska nala ah sida Kenya, Ethiopia iyo Djibouti ba faragelin toos ah ay siyaasadda ku hayeen candidate ay rabaan ayay si toos ah u taageeri jireen ayagoo qaab ciidan ku taageeraya sida dawladda hadda Ethiopia doorashadii hadda la soo dhaafay waxyaalo badan ayay Soomaaliya ka samaysay dawladda Kenya sidoo kale waxyaalo badan ayay Soomaaliya ka samaysay waliba Kismaayo ay ka samaysay dadka Soomaalida way ogyihiin soo marka sanadkan arrintaasi isbedel weyn ayaa ku dhacay kow Ethiopia horta meesha way ka muuqanta oo ahayd dadkii ugu badnaa oo xoog ku isticmaali jiray kuraasta oo odayaasha iyo qabaa'ilada iyo meesha doorashada ka jirto dadka foos gareyn jiray qasbi jiray waxaa jirtay xildhibaano ku soo baxay ayadoo meeshii loo fadhiyay inta salaad la aaday markii la soo laabtay ciidamo Ethiopian inta lagu xiray la yiri heel baa soo baxay baa jira oo la garanayo oo musharax hebel iyo xildhibaan hebel hadda ay ku fadhiyaan xildhibaanada oo sida ay ciidamada Ethiopianka ee musharax uga dhigay baa jira oo la garanayo marka arrintaas sanadka meesha way ka maqantaa oo ciidamada Kenya hal magaalada Kismaayo meel aan ahayn sanadkan ma joogaan cid kale ma qasbi karaan kuwa hadda garbahaari la geenayna ma aha kuwa hadda wax qasbi kara oppositionki ay wax qasbi jiraan ciidamada Kenyaanka ah iyo ciidamada Ethiopianka iyo ciidamada AMISOM ba hadda waa laga baxa oo hadda siyaasadda Soomaaliya different way bay noqotay dhanka kale Ethiopianki wax qasbi jiraan completely meesha way ka maqan yihiin sidoo kale nimankan loo yaqaano Djibouti wax ka jooga gobolka Hiiraan la yiraahdo ayaguna wax ma qasbi karaan sanadkan ayaguna sababta u qasbi karaan waxa weeye Djibouti iyo dawladda Soomaaliya isku ma fiicna awood oo malaha hadda Djibouti marka inay wax qasabto because of ciday u qasbaysaa oo dawladda noqon karta oo ka amar qaadan karto ayay isku fiicnayay u qasbaysaa marka lama garanayo marka soo marka ayaduna meesha si weyn bay uga maqantaa dawladda dariska meesha uga maqan yihiin soo marka waxa kale oo ayadana factor weyn ah sanadkan oo doorashada wax ka bedeli doona oo caawin doona factor ka soo dawladda dariska hadii meesha ka maqan yihiin ayadana madaxweynaha caawinaysa waayo dawladda dariska inay dhexdhexaad meesha ka noqdaan oo ay dhexdhexaad ka noqdaan dawladda caawinaysa absolutely soo marka arrinta kale oo ayadana meesha ku jirto oo factor weyn ah oo aan isleeyahay dadku inay sanadkan isha ku hayaan ayaa muhiim ah waxa kamid ah lacagii ergada la siin jiray lacagaha boorsa lagu soo qaadin jiray ergada la siin jiray mucaaradkii hadda dawladdu way isfiirsanayaan dawladdu waxaad moodaa inay hadda shacabka kalsooni ku qabto musuqmaasuqa dawladdu waxay ka doorbidaysaa in si caadi hadda ku dhacaan waayo madaxweynuhu wuxuu aaminsan shacabka inuu taageero ka haysto ma qaldan tahay mise waa saxan tahay ma asaga u taalo laakiin madaxweynuhu hadda aragtida uu haysto waxa weeye inuu shacabka kalsooni ka haysto intii wax la musuqmaasuqi lahaa wuxuu u arkaa in si toos u dhacaan
sida tooska ayuuna madaxweynuhu u arkaa inay wax ugu hagaagayaanba soo marka madaxweynuhu iyo ciidanka dowladda iyo ciidanka amisom way adag tahay marka iyo cid walba oo hadda arrinta amniga doorashooyinka loo xilsaaraa way adag tahay inay mucaaradku ay musuqmaasuq lacaga ay geeyaan waayo dowladda ayaa ku adkaynaysa oo doonaysa in dhanka kaleeto ay wax u dhacaan oo musuqmaasuq la'aanta ah oo ka dhaxaarta danaheeda soo marka lama geyn karo lacag xagee lacag la geenaya qorqor lacag looma geyn karo cali guudlaaba lacag looma geyn karo isheeg axmed madoobe iyo dani meesha ay joogaan lacag waa la geyn karaa obviously because axmed madoobe iyo dani meesha waxay ku hayaan ayagaa meesha gacanta ku haysa kismaaciil axmed madoobe baa ka taliya ciidanka inama geynayso danina meesha uu joogo oo labada position ah saddexdaa position unbaysan dowladdu jooginin waa kismaayo iyo meesha loo yaqaano garowe iyo boosaaso intaas unbaa lacag la geyn kara ayaa unbaa musuqmaasuq laga samayn karaa weliba musuqmaasuq dhanka mucaaradka socda ah oo lacag la geyn karaa laakiin inta kale lama geyn karo dowladdiiba underwatch ama doonayso way qabanaysaa ma garanaysaan dowladduna dhankan kale ayay danteeda ku jirtaa sida ay u aragto soo marka arrinta lacagii la qaybin jiray ee ergada loo qaybin jiray sanadkan aad uma dhici doonto hadday dhici doontana way koobnaan doontaa waxaa kale oo ayadana consideration u baahan waxaa weeye 101 ergo ayaa halkii xildhibaan dooranaysa 101 ayaa dooranaysa hal xildhibaan walba haddii marka aynu isku dayno xataa inaynu lacag yar aynu ku dhufano aynu dhahano aynu bal samayno waxa loo yaqaano halkii xildhibaan haddii 101 ay soo xulayso halkii ergey qofka hadda anigu maanta aan doonayo inaan xildhibaan aan raadiyo 100kaas ergada ay meesha fadhida ee tolkayga aad tusaale ahaan oo kale haddii aan dabcinaan laaluusho hadda lacagta ugu badan oo siin kara midkiiba $1 baan siin kara tusaale ahaan oo kale $1 baan siin ka soo qaad soo marka inaad $1 siiso marka waxay noqonaysaa in $101,000 ay kaaga baxdo inaad 100ka ergaba aad laaluushto $101,000 marka waa hal xildhibaan nimanka marka mucaaradka ay doonayaan inay xildhibaano badan ku bixiyaan haddii halkii xildhibaan marka ay $101,000 ku baxayso 10kii xildhibaan ee kaliya 1 milyan baa ku baxaysa waa 10kii xildhibaan ee kaliya 1 milyan baa ku baxaysa meeqa xildhibaan markaas ayuu musharax iibsan karaa haddii halkii xildhibaan ay 1 milyan ku baxayso lama se 100 xildhibaan buu iibsadaba salahan oo kale that's over $10 million in 100 xildhibaan lagu iibsado waa lacag badan wey uma malaynaya marka xataa dowladdu inay u suurtoobi karto in 100 xildhibaan la iibsado is over mataqaanaa $10 million bay noqonaysaa haddii $1,000 oo lacagta ugu yar oo qof la siin karo laga dhigo haddii 2,000 laga dhigo bal 20 milyan bay noqonaysaa soo marka markii la fiiriyo numberka oo la kordhiyey oo 101 ah in marka nimanka musharaxiinta ah ninka xildhibaanka asaga waa laga 101 kuntu baxsado whatever beeshiisa inuu asagu xildhibaan noqdo laakiin muhiimadu ma aha ninka inuu soo baxee muhiimadu waa in musharax uu helo xildhibaano badan uu iibsado uu doorasho ku galo like 100 qof oo kale uu helo soo marka ninkii doonaya marka musharaxa inuu helo 100 waxa loo yaqaano ama in ka badan ba ama 150 ama 200 lama anu 100 ba ka soo qaado oo waliba la oran karayo fast run ba loo gudbi karaa oo second position iyo third position hadii laga hadlayo ayaa loo gudbi karaa 100kii marka iibsada hadda ka soo qaado kara hadii aad la Shariif 100 ha iibsado ama Xasan 100 ha iibsado ama Farmaajo 100 ha iibsado xildhibaan at least $10 million ba ku baxays muxuu kala marka habeenkii meeshii markii la tagayo xildhibaan in la soo iibsado wada fast stage way markii hawsh dhinaca kale u dhacdo way hadda lacag kala badan abixiso soo marka lacagta markii aan fiiriyo it is not possible idan dowladda hana suurta gali karto dowladdu ma malaynay lacagta bixin doonto marka mucaaradka bixin waayay waxa loo yaqaano dhowr boqol askari mushaarkoodii bixin waayeen nimankii mucaaradka ayaan dhawto isku dayay inay niman jifa ah ee abaabulaan oo dhahaan dowladda carqabadeeya ilaa iyo 200 ilaa iyo 300 askari ayay min $200 awoodi waayeen for only 1 month bis ilaa marka dambe la yiraahdo lagu celiyo ciidamadoodii si mushaar u helaan ninka marka ciidanka mushaar u waayay oo min $200 u waayay ma hal ergo oo xildhibaan uu doonay ku soo bixiyo $1,000 ku bixin doona imise qof oo musharaxiinta ayaa arrintaas samayn kara sawirka ayadaas marka aad meel walba ka fiirso arkaysaa in arrintaas sanadkaani ay adag tahay because ergadii baa la badiyay haddii 300 la gaarsiin lahaan dabcan way ka sii fogaan lahayd arrinta ugu dambaysa oo aan rabo inaan qaybtan uga hadlo ayaa waxay tahay
ما هو أرنت قدام بس مد كسي دم بس مد بكسي دم بين دونتا دورشي الصومالي إنه قاني العقب اللي قاعد يتشاف ده دون تصبح العقب به لكن سنة كان فكتة بقصوكر ده عرب بقصوكر بي وام حي مبدأ بقصوكر أي قصوكر بي حتى الصومالي بحي أكل بحين لبق جروب معارض محافظ الله كبح نك معارض كعه مبدأ أبو آمسية نك محافظ كان مبدأ أبو آمسية مبادئ ده سوى حكيري سامركا إن نك الصبح العقب بو حتى على السياح قفك أسقو الدوراء وعذيني تصالحنا كحلاجة وانين مبادئ madaxweynaha aaminsan inuu soo baxo oo nin kale uu lacag ka qaato lacag dur wax ka qaato laakiin farmaajo buu codan doona waaye mabda ba soo baxay saas Soomaali mabda ma lahan jiro qabaa'il iyo dhaqaale iyo lacag iyo wax ma ka sheekeyn jirna laakiin hadda mabadi ba lagu soo kordhiyay tusaale oo kale to hadda Xasan Sheekh Maxamed markii uu dalka madaxweynaha ka ahaa markii uu doonayay inuu mooshin uu keeno uu xilka ka qaaday ra'iisul wasaare lacag buu isticmaali jiray xildhibaan lacag baa la siin jiray saas lacag loo qaadi jiray farmaajo markii hadda uu xilka ka qaaday Xasan Cali Khayre iyo markii waxyaalo badan uu subinay hal nin ah oo farmaajo lacag siima jirin haddana xildhibaanada meesha fadhiya numberkooda ugu badan farmaajo way halkiisa way yeelayaan miyuu ka xigaa may ka xigo laakiin farmaajo ayaa siyaasadda ku soo kordhiyay mabadi' buu ku soo kordhiyay dadka xildhibaanada ah waxay matalaan ama ay ka mid yihiin shacabka dadka shacabka Soomaaliyeed sanadkaani doorashada marka ay galayaan numberkooda ugu badan farmaajo waxay u arkaan inuu yahay ninka kaliya ee dalkan badbaadin kara masaxa masaba qalada waa arrin aan ka dibad garan karo laakiin waa mabda' cusub oo dalka ku soo kordhay ayaan dalku mabda' ma lahayn aragti ma lahayn dhaqaale iyo lacag buu ahaa laakiin sanadkan waxa la yiri farmaajo mabadi' baan ku taageerinaa caawa hadduu yiraahdo xildhibaanada sameeya go'aanka farmaajo way taageerayaan inta diidi kartaa waa number yar inta soo xadirtaa 90% asagoon single dollar ku bixinin ayay odeynayaan go'aanka uu doonayo asagoo wax waqti ku bixin ayay odeynayaan waayo way trust garayeen way aamineen way trust garayeen waxayna u arkaan inuu yahay madaxweyne daacad aniga u arka xildhibaanada u arka dad badan oo Soomaaliya u arka halka dad kale ay diidan wali inkastoo numberkoodu jar yahay oo number yar ay yihiin laakiin mabda'an marka farmaajo uu meesha ku soo kordhiyay waxa uu saameyn doonaa qabaa'ilada iyo reeraha iyo xildhibaanada la dooranayo ayaantii hore nimanka reeraha ah iyo dadka shacabka ah xildhibaanka la dooranayo cidna waqti ku bixin jirin laakiin hadda waxa bilaabatay already in qabaa'iladii ay yiraahdaan hebel nama matali karo waayo waatu hebel nama matali karo waayo madaxweynaha iyo dawladda ma rabo waa qaraduus dadkii ayaa hadda bilaabay in xildhibaano badan oo mucaarad ahaa already hadda la diido oo dad dhalinyaro oo loo arko inay ama dawladda taageersan yihiin ama madaxweynaha ay rabaan loo proposal gareeyo oo xataa ay ku soo bixi karaan baqaad free ah ayagoon lacag bixinin waayo waxa laga dhaxarkayaa danta ah inay dawladda la shaqeyn karaan baa laga dhaxarkayaa soo marka mabda' hadda ku soo kordhay siyaasadda farmaajo aad bay u caawinaysaa oo odayaasha dhaqanka dadka shacabka ah iyo dadka codeynaya iyo qabaa'iladuba ma yeeli doonaan xildhibaano hore oo ku suntanaa mucaarad iyo inay shayo u shaqeeyaan in la yeelaa way adkaan doontaa oo nimanka noocaaya numberka ka soo laabtaa way adkaan doontaa ayaantor waa la isqasbi jiray xildhibaanada xoog bay kusoo bixi jireen ciidamo military la isticmaali jiray dhaqaale iyo been baa la isticmaali jiray dad aan soo bixin ba xataa way soo bixin la oran jiray because of waxa la isticmaalaya awood laakiin this time waxa ma jirto qabiil kursigooda la boobi kara sanadkan ma jiro taasna waa factor weyn waan islaahay dhanka madaxweynaha aad ayay maxaa la yiraahdaa ayay u caawin doontaa arrinta ugu dambaysan kusoo koobiyo qaybtan waxay tahay waa positionada goobaha ah ee wax ka dhacaya markaad fiiriso fiirad waxay wax ka dhacayaan baan u malaynayaa laba meelood oo Jubbaland adigu waa 11 goobood shanta maamul goboleed oo min laba meel ah iyo gobolka Banaadir 11 goobood bay ka dhacayaan waxaad fiirisaa possibility-ga 11kaas goobood inta ay ka dhacayso inta hadda madaxweynaha laga taageerayo iyo inta mucaaradka laga taageerayo fiiri saddexda goobood markii laga reebo Kismaayo Garowe iyo Boosaaso oo Siciid Dani Axmed Madoobe gacanta ku hayaan markii laga reebo inta kaleeto xildhibaanada ka soo bixi kara numberkooda ugu badan waxa la oran karaa dhanka madaxweynaha ay taageerayaan حتى هذيس تاجرين وعدد عن القصبين قابك كصبحين قام كود بدري كلام أي حقوله لكن إحنا قندنا ضد على القصبين لكن ككسر بحي كسمايو
iyo kan garowe iyo boosaaso ka soo baxaya waa dad la qasbaya wey waa xaqiiqo wey anigaad jeceshahay inaad necab tahay iyo aroon keer laakiin xaqiiqadan ka hadlayna soo marka 11 goobood markii laga reebo 3 goobood markii laga reebo 8 goobood oo soo hartay waxay u badan dadka ka soo bixi doonaan inay yihiin dad madaxweynaha taageeray soo marka dhankaas markaad ka fiirisana waxaad arkaysaa doorashadu inay noqon doonto doorasho aan lagu tartami karin oo dhanka ninka madaxweynaha u badanaysa soo marka doorashada sanadkan marka analysiskeeda wuu dambeeyaa laakiin hadda waa aragtiyada inaan idiin bidhaamiyo waxyaalaha faktarada ay wax bedelaya positionada goobaha ah xagee loo kala badan yahay sida hadda aan sheegay oo kaleeto waa 8 iyo 3 bay kala yihiin dhaqaale lagu bixin jiray sanadkan dhaqaale badan buu noqonayaa oo ninkii doonayay inuu musharaxo 100 xildhibaan inuu lacag ku bixiyo iibsa hadduu xataa doonayo xataa 10 million plus bay noqonaysaa oo aan la awoodi karinin mid saddexaad dowladii carbeed lacagta laga soo heli jiray sanadkan meesha way ka baxeen waxaa meesha ka baxay ciidamadii midowga afrikaanka iyo ahaa ee ayagu dadka qasbi jiray meesha way ka baxeen doorasho waxay noqonaysaa runtii xiisad badan laakiin doorasho waxay noqonaysaa aad arkayso in la kala awood badan yahay so far wixii marka ka soo baxa waxay u baahan tahay marka hadda guddiga doorashada ayaa hadda lagu fadhiyaa oo la yiri ilaa ay ugu yaraan xogta ay soo gaaraysa ilaa ay 14 xubnood ayaa la yiri hala bedelo oo mucaaradka ay leeyihiin 14 qof ayaa la calaamadeeyay halkaan hadda aan ku hayo laakiin ma sheegayo inta arrintaani ay si fiican u soo guda dhacayso muuqaalada dambe ayaan ku falanqayn doonaa laakiin 14 qof ayaa la ii sheegay in la bedeli doono soo marka guddiga la bedelayo markii la sameeyo oo guddiga la isku raaco oo guddiga la diro oo goboladii ay tagaan iyo waxa loo yaqaano iyo meelaha amniga oo rajaalaha gacantiisa lagu wareejiyay arrimaha markii la gaaro baynu more information heli karnaa sida xaaladda ay noqonayso laakiin hadda waxyaalaha indhaha aad ku haynaysaan baa ka mid ah arrimahaas aan idiin sheegay soo marka doorashadu way xiiso badan tahay aad u xiiso badan tahay wayna muuqataa in doorashadu lagu kala adag yahay oo lagu kala adkaan doono waxaa kale oo ka muuqda hadda already nimankan hadda mucaaradka markii shariif laga reebo disappointed bay yihiin oo way ka niyad jabsan yihiin oo wejigooda iyo wax ka muuqda markaad aragto waad arkaysaa waxyaalihii ay doonayeen inay helaan oo ay rabeen inay ku guuleystaan baa meesha ka baxay soo ayaguna marka waxaad moodaa inay gacan intii la tagayaan so intaa baan kusoo koobayaa asxaabta qaaliga ah oo ku dheeraaday maanta ito laakiin inaynu bal fahano waxyaalaha imaan karaya iyo waxyaalaha meesha ku jira iyo xogahaas la xiriira nimankaas carbeed lacagihii laga waayey iyo nimankan kaleeto iyo waxa waa muhiim bay ay ahayd baan isleeyahay walaalkiin xuseen jaamac oo inkaga tegaya sidaa iyo nabadino waxaan ka codsan lahaa inaad la wadaagtaan asxaabta kale walaalaheena si ay la daawadaan muuqaalkan iyo muuqaalada lamidka ah ee aan dhawaan soo saari doono haddii aad sidoo kale runtii aad ku cusub tihiin pageka fadlan like saara follow saara lada sii wadaaga saaxiibadiin si aad la socotaan update-ka iyo turxan bixinta siyaasadeed aynu dul istaagayno mar walba wax Soomaaliya ka jira oo walaalkiin idinkaga tegay sidaa iyo nabadino